kuwani waa sawirro ka imanaya saldhig ku yaala gobolka Ticis ee dalka Yemen halkaas oo laga arkayo ridista dufcadii ugu horeysay ee gantaalo lagu beegsanayo bartilmaameedyo Israa'iil iyo Mareykan oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe sidaas awgeed waxa hadda la dhihi karaa Yemen si rasmi ah ayay ugu biirtay dagaalka waxa ay tani daba socotay markii ciidamada qalabka sida ee Yemen oo kaashanaya xoogagga Ansaarullah ay ku dhawaaqeen bilaabida howlgalla military oo ka dhan ah Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ay ku baahsan gobolka bayaan military oo telefishinka laga aqriyay ayaa lagu cadeeyay in howlgalladani ay ku imanayaan taageero loo muujinayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran isla markaana ay yihiin garab istaag loo fidinayo shacabka dulman ee Falastiin ee ku dhibaataysan Gaza waa tallaabo la filan karay balse ka soo hormartay xilligeedii sidaas darteed waxaana hortaal daqiiqad bedeli karta qaabka dagaalka guud ahaan gantaaladan ayaa laga ridayaa saldhigga Al-Jund ee gobolka Ticis iyada oo loo sameeyay munaasabad military oo heer sare ah isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegeen ilay reer Yemen ah dufcadda gantaalada ee hadda ka dhaqaaqay saldhigga waa kuwa masaafo dheer waxaana la filayaa inay gaaraan bartilmaameedyadooda saacadaha soo socda taas oo noqonaysa wajigii ugu horeeyay ee iska horimaad toos ah oo ay Sanca ku dhawaaqdo tan iyo markii uu qarxay dagaalka ugu dambeeyay ee u dhaxeeya Iran oo dhinac ah iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac kale ah afayeenka ciidamada Yemen ayaa sheegay in howlgalladani ay qayb ka yihiin dagaalka ummadda Islaamka oo dhan isla markaana aysan ku ekaan doonin heerkan balse ay ku fidi doonaan bartilmaameedyo iyo dana kale haddii xaaladda ay ku khasabto waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in ciidamadiisu ay la safan yihiin Iran isaga oo ku tilmaamay waxa socda duulaan gardarro ah sidaas darteed Yemen si rasmi ah ayay u gashay dagaalka waqtiga iyo qaabka lagu shaaciyay galitaanka dagaalka ayaa hubaal ka dhigaya in xaaladda noqotay mid ka mid ah kuwa ugu xasaasisan ee gobolka Soomara sanado badan tallaabadani waa jiha gabi ahaanba ka duwantii hore waana mid aan hore loo arag colaadan intii ay caasimadaha waaweyn sugayeen jawaabta Iran isla markaana ay isha ku hayeen koonfurta Lebanon si ay uga hortagaan ballaarinta dagaalka ayaa waxa ku soo furmay jiha cusub oo ka timid koonfurta Carbeed haddaba xaaladan maxay ku kordhinaysaa xiisadda awood intee leeg ayay Iran siinaysaa aagan cusub ee ka furmay Bab al-Mandab Mareykanka iyo Israa'iil sidee ayay uga jawaabayaan su'aalahan iyo kuwa kale ayaan kaga jawaabeynaa tabinteena Tafaftir Media soo dhawaada markale kulan wanaagsan haddii ay tahay markaagii ugu horeysay aad daawanayso Tafaftir Media waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran aan toos u abaarno tabinteena ciidamada Yemen ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay gelitaankooda howlgallada iyagoo ridaya gantaalo masaafo dheer oo laga tuuray saldhigga Al-Jund ee gobolka Ticis iyadoo ay goobjoog ahaayeen taliyaha guud ee ciidamada iyo saraakiil sare oo ka tirsan qaybta gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarka laga qaaday saldhigga Al-Jund ma aha taageero astaan ah oo kaliya waa fariin cad oo muujinaysa in xuduudda Yemen ee aan si buuxda hore loogu soo bandhigi jirin haatan ay gashay marxalad adeegsi toos ah heer ka sarreeya waliba wixii laga arki jiray isku dhacyadii hore ila goobjooga ayaa sheegay in gantaalada la riday loo jiheeyay dhulka la haysto ee Falastiin waxaana si cad loo sugayaa waxa ku xiga dufcadan saacadaha soo aadan qiyaas la bixiyay ayaa tilmaamaya in qaar ka mid ah gantaalada ay yihiin noocyo aan hore loo adeegsan sanado badan ama laga yaabo xataa inay yihiin markoodii ugu horeysay ee la adeegsado tallaabadani waxay dhab ahaan u bedelaysaa sida ay dhinacyada u fakarayaan maadaama galitaanka Yemen xilligan gaarka ah uu ka dhigan yahay in khariidada dagaalka aysan ahayn tii ay ahayd daqiiqada ka hor saldhigga Al-Jund laftiisa wuxuu leeyahay astaan military oo weyn marka la eego gudaha Yemen waxaana doorashadiisa loo adeegsaday ridista duqeyntan ay muujinaysaa in Sanca ay u aragto waxa socda qayb ka mid ah dagaal ballaaran sida la qiyaasayo aan noqon doonin mid kooban ama qaata waqti gaaban waxaa daqiiqada gudahood isbedelay khariidada dagaalka ee gobolka galitaanka Yemen ee diriirtana ma aha war fudud ama tallaabo lagu qiyaasi karo sidii maalmihii hore waa daqiiqad taariikhi ah oo leh miisaan buuxa muuqaalka laga arkay saldhigga Al-Jund wuxuu xisaab military iyo siyaasadeedba ka dhigan yahay in jiha cusub oo ka fogeyd bartamaha isku dhaca ay maanta ku furantay marin istaraatiiji ah oo aad xasaasi u ah waa marin aan dhinacna iska indhatiri karin miisaankiisa iyo saameyntiisa Yemen iyadoo ay kooxda Ansaarullah lahayd culays goboleed ayaa haatan waxa ay gashay isla egtii hore u dhaxmartay dhinacyo cayiman galitaankeeda ayaa dib u qaybinaya miisaanka cadaadiska isla markaana ku qasbaya dhammaan dhinacyada inay dib u xisaabtamaan
waxa dhacay ma aha oo kaliya ridista gantaalo masaafo dheer ee waa ku dhawaaqid muujinaysa in dagaalku ka gudbay xuduudihiisii hore una tallaabay weji ka ballaaran isla markaana ka farcamay oo ka khatar badan. Su'aasha hadda taagan waa mid kaliya: ma daawanaynay bilowga dagaal mise waa bilowga marxalad gebi ahaanba cusub? Waxaa hubaal ah in saacadaha soo socda ay noqon doonaan kuwa ugu culus, ugu xasaasisan, isla markaana ugu dhow kala bayr wax ka bedeli kara qaabka gobolka Bariga Dhexe. Dhinaca kale aanu wareegno duqeyntii Iran ay la beegsanaysay dhismaha raaxada leh ee la degan yahay ee Defensia oo ku yaala bartamaha Tel Aviv. Weerarkan oo markii hore u ekaa gantaal ku dhacay dhisme ayaa markii dambe la ogaaday inuu ka khatar badan yahay sawiradii hore. Markii ugu horeysay tan iyo bilowga colaadan, ila Israa'iiliyiin ah ayaa xaqiijiyay dhimashada sarkaal sare oo ka tirsan laanta sirdoonka militariga. Sarkaalkaas oo u xil saarnaa unugga howlgallada ee Aman, kaas oo si toos ah uga qayb qaadanayay isku dubaridka duqeymaha cirka ee Israa'iil ku beegsanaysay bartilmaameedyo ku yaala Iran iyo koonfurta Beirut. Sarkaalkaas oo lagu magacaabo Abigail Waliya wuxuu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala dabaqa 24aad ee dhismaha. Dabaqaas oo si toos ah u beegsaday gantaalka oo bartilmaameedkiisu sugnaa. Marka la eego baaxadda duqeynta, waxaa la arkay in hal dabaq oo kaliya iyo hal guri laga dhex beegsaday 10 guri oo ku yaala dhismaha weyn. Arrintan waxay dhalisay su'aalo waaweyn oo ku saabsan heerka saxnaanta, nooca gantaalka la adeegsaday, iyo sida uu uga gudbay nidaamyada difaaca Israa'iil ee qubadda birta ah ama loo yaqaano Iron Dome. Weerarka wuxuu dhacay saacadda markay ahayd 11 iyo 20 daqiiqo ee barqanimo, xilli uu gantaalka ka gudbay difaacyada cirka oo si toos ah ugu dhacay dabaqa 24aad, taasoo sababtay burbur iyo dab qabsaday guriga. Ciidamo gaar ah oo ka tirsan hay'adda Shin Bet ayaa si degdeg ah u hareereeyay goobta, iyagoo ka hor istaagay warbaahinta inay gaaraan agagaarka dhismaha, taasoo muujinaysa xasaasiyadda qofka ku sugnaa halkaas. Ilaa caafimaad ayaa xaqiijiyay in la helay meyd lagu tilmaamay sarkaal sare oo militari ah, iyada oo sidoo kale ay dhaawacmeen xubno ka tirsan ilaaladiisa iyo dad kale oo deganaa guryaha ku dhow. Weerarka heerkan bartilmaameedkiisu gaarsiisan yahay wuxuu keenay hal su'aal oo kaliya: sidee ayay gantaalada Iran awood ugu yeesheen inay ka gudbaan qubadda birta ah ama Iron Dome, isla markaana ay gaaraan guryaha hogaamiyayaasha militariga ee ku yaala bartamaha Tel Aviv? Sidoo kale tan iyo waa barigii maanta, warbixinada ka imanaya Tehran ayaa waxay ka hadlayeen dhulgariir militari oo ka gudbay xuduudaha. Gantaalo dhulka ah oo Iran ay ka ridaysay saldhigyadooda ayaa beegsanayay qalbiyada saldhigyada Mareykanka ee gobolka. Maraakiibta iyo saldhigyada Mareykanka waxay hadda ku jiraan bartilmaameed toos ah, hase yeeshee arrintu kuma koobna gantaalo oo kaliya. Faahfaahinta la helay waa mid argagax leh: weerar isku dubiradan oo si wada jir ah uga qayb qaadanayaan ciidamada dhulka, cirka iyo badda hal mar oo kaliya, iyo kooxo diyaarado dagaal oo aan duuliye lahayn iyo maraakiibta wax burburiye ayaa beegsaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil iyo xarumo muhiim u ah saldhigyada Mareykanka. Bayaan rasmi ah ayaana xusay magacyada qaar in si cad ay u yihiin bartilmaameed, sida saldhigga Al-Udeyd. Tehran waxay sheegtay in dulqaadkeedii dhammaaday, isla markaana beegsiga dhulkeeda uu jawaabtii ka rogay mid diblomaasiyadeed una bedelay dab iyo burbur. Laakiin qaybta ugu cabsida badan bayaanka ma ahayn wixii dhacay subaxnimadii, ee waa waxa dhici doona saacadaha soo socda. Ciidanka Iran kuma ekaan duqeymaha maanta, waxay dunida u direen fariin kale. Saacadaha soo socda waxay noqon doonaan kuwo ka sii kulul. Heerka dagaalkuna wuxuu kor uga kici doonaa si aan la qiyaasi karin. Ma aha iska horimaad kooban oo kaliya, waa kacsanaan bedeli karta wejiga gobolka sanado badan kadib. Xilligan qayladhaan ayaa ka yeeraysa dhammaan Tel Aviv. Wadooyinkii saxmadda badnaana waxay isu rogeen magaalooyin maran. Dadku way ordayaan, way dhuumanayaan, cabsi ayaana haraysay. Dufcadii gantaalada ballistiga ee Iran ayaa bilaabay inay gaaraan bartilmaameedyadooda laga bilaabo qalbiga Tel Aviv iyo degsimooyinka daanta galbeed. Ma aha gantaalo caadi ah. Wararka goobta ayaa tilmaamaya in la adeegsaday gantaalo kala burburaya oo aad u khatar badan. Gantaal kaliya ayaa cirka ku qarxaya, kadibna isu bedelaya madaxyo badan oo khiyaamaya nidaamyada difaaca ee Israa'iil iyo Mareykanka, isla markaana u da'aya sidii roobka oo kale. Dhawaaqa qaraxyada isdaba joogga ah ayaa buuxiyay hawada. Qiiq ayaa daboolay cirifka. Adeegyada dadweynaha way hakadeen. Hoygii dhulka hoostiisa ahaana ciriiri ayuu noqday. Garoonka Ben Gurion waxa uu galay xaalad khatar toos ah. Tehran ma hanjabayso oo kaliya, waxay fulinaysaa howlgalkii ugu ballaarnaa ee safmar ah taariikhdeeda. Su'aasha qof walba ka argagaxay ayaa ah: haddii ay tani tahay wixii daqiiqadihii la soo dhaafay dhacay, maxaa iman doona saacadaha xiga? Ciidanka Iran ayaa waxay si cad u sheegeen in ay sii laba kaclayn doonto xaaladda iyadoo ka sii halis badan. Waxaana lagu jiraa daqiiqadihii ugu horeeyay ee isbeddelka wejiga gobolka.
dabkuna wali waa bilow sida ay leeyihiin ma jirto cid si hubaal ah u og inta gantaal ee gudubtay ama halka ay ku dhaceen haraadigooda balse waxa la hubo waa cabsi buuxisay waqooyiga Israa'iil oo dhan gurmadka degdega ah iyo booliisku waxay bilaabeen heegan sare saacadaha soo socda ayaana muujin doona cabirka musiibada dhabta ah dhacdaduna wali waxa ay tahay mid dhiiga qubaysa dabkuna waa uu sii fidayaa wararka ka soo kordha Tifaftir Media ayaan idinkula wadaagaynaa ee hamoogaanina inaad nagu xirnaataan intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan